Soomaaliya af soo dhaweeyay in Soomaaliya 14 bishan kaga qayb galay wadanka Djibouti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana waftiga madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi si weyn ugu soo dhaweeyay inta u dhaxaysa madaarka diyaaraduhu ka hadaan ee Cigaal International Airport ilaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland markii madaxweynaha Soomaaliland uu soo gaadhay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa uu halkaasi ka jeediyay khudbad kooban oo uu kaga hadlayay qaabkii u dhacay shirkii wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee muddada 4 maalmood ka socday wadanka Djibouti saddexdii cisho u dambeeyay baan ka hadlay shirka markii la dooday cudurada dowladda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dowladaha oo ka Mareykanka ugu xoog roora waxa loo go'aamiyay in la yiraahdo arrinta waa culusta markii horreysay in la garabsado arrinta waa culusta hadday culus tahayna oo dad camadsa u kala sareeyaan baa loo guraa waxaan u diiday xageenu ka bilowna waxaan ku niriday waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyay horta hal fuliyo ee markaas la bilaabi doonaa hadaan tii hore la fulin haba yaraatay haba weynaatay hadaan ku hore la fulinay maxaa tuduma laga bilaabo sidii baa lagu guddoonsaday waxa loo saaray guddi wasiirka waxaan doonayaa inaan halkan ku xuso oo la sheego guddida wasiirada ah iyo adna oo wasiirka roona ah iyo Maxamed Biixi oo wixii uu aqoon iyo awood hayay maanta shirka kaga qayb galay oo isla la socday oo shirkada la socday oo sidii shanta halka fadhiya Maxamed Biixi baa shirka ku jiray oo isagu Nairobi kaga jiray halka waxa ka dhacay shir aad iyo aad u adag waxa hubaa shanta halka fadhiya afarta wasiiriyad saddexdii cisho u dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkii ugu soo horeeyaan tobankii soo baxay saacada qadada mooyinka kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la calaysay dhiig karaya banaanka gudaha loo soo baxayay waayo dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira masdaradu waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxa jira nasiib wanaag dagaalkaasi wuxuu socdaba kolba wax la kala boodaba kolba aniyo Saleebaan waxa noqdayaan noqon war baruuk hadiya degdeg meeyay inaga dan leh baruuk hadiya soo boodina ku celino halka ay ka soo boodeenba nasiib wanaag xalay saacadan ayaa la soo boolaaday anagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa roos laakiin dawladda Djibouti guntiga isha iska dhigtay madaxweynaha oo isa soo taago ma waa la kala gar qaadanaya waa inaan soo saaro communication waxa la wehelinayay dawladaha shirka waday oo qolada Mareykanka ugu weyntahay oo yiri ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garbeeyay waa loo kala gar qaadanaya wixii ka soo baxayna waa maqasheen qodobada ah iyo waqtiga la soo qabtay markii hore ee arrintan la weydiiyay waxaan ku galnay ma doonayno shir inta la siino hadda la salaamo walaal kala tagay hadii hawsha loo galayo si dhab ah oo mudaysan oo mid waqtigeeda la qabanayo waa ma lagu heshiiyay ma la isku diiday si dhab loo wada hadlayo diyaar baan laakiin uma baahnin tufooda ugu galay iyo tu cid sawir lagu tusaayo iyo to abanta maxay ahayd mudaharaah iyo midna ma rabo horta shirka nuxurkiisu waa ka waanu soconayaa marka saddexda qodob ugu muhiimsan yihiin tii dhaqaalaha oo ka dhalsantiin oo soo taageen inama meesh joogo wardi anaga dawladda dhaxaw anaga caalamka la midnaa kala ma ictiraafsana oo kulli cidii ku dooratay iyo cid aad u taliso oo ula tag anaga wadina wayne anaga isoo madax banaan تعال كسر تجسنا تاسع أو أي سبب وين هذا قرار وحبحساب ملاك جوريا أنا والصومالي ورطن بان وحسيننا هدي دين اللي جسنا حنا الصومالي ورطن صومالي هذه هورو دون يسكت سوا حسين هدي إذا هالشيء سكوا صعون مس سأو قريب سنة سنة يسأل ولا يسأل يدي كيس ساكن فيه هرك أول إسكال سوق أنا دورسي ده اعترافه من أجل شو اعتراف سنة ودولد دول وحنقولك هذه المنطقة يا مسيرها سووا شيء قلت يا بنتي كل عضي وإن كان أنا بحرنا يركب فلان أرسل يرسل هذا إلا ساعة ولا مات محمد عمر طارق RTN هرقيسة.